kala aheeday dhibkii iyo dhibaatadii xasuuqii ka dhacay gobolka Banaadir oo mas'uuliyiintii gobolka lagu laayay aqoonyahan fara badan qaar badan ay ku dhaceen 24 bishan Juulaay awalan waxaan leenahay Rabbi subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto intii meesha ku dhimatay shahaadadoodana Rabbi subhanahu wa ta'ala ha aqbalo intii ku dhaawactayna oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Engineer Yarisow iyo dhammaan intii kale raacday dibadda iyo dalka joogto qaar xamili waayay diyuurada oxygen laan darteed oo nin kamid ah inta ku dhintay qaar kale Ilaahay dhaawac yihiin ugaasiyada iyo salaadiintana oo u duceynayna waan boqolkiiba boqol waxaan leenahay duca qalbigeena ka soo go'day Rabbi subhanahu wa ta'ala ha caafiyo waxa isweydiin mudan oo arrimaha siyaasadda iyo shacab weynahaba isweydiinayaan Soomaaliya oo dhan wada siyaasiin weeye dhibka sidoo u dhacay xaqiiqatan dhibka asaas inuu dhaca ma ahayn ma mudnayn haddana waxa cajiib ah qaabka loo taxliilinayo waxa la leeyahay gabar indhoola ah ayaa ka dambeysay wax official oo xataa dawladda ka soo baxay ma ahane waa ku tiri kuteen la leeyahay dhibka saas oo dhacay gabadhaas ka dambeysay maadaama ayada loo isxaan iyo abaal fali jiray qof indhoola ay aheeday arrin xaqiiqa ma aha waxa kale ku tiri kuteen lagu hayaa waxa la kaamirooyinka dhowr maalmood way dansanaayeen waxaasoo dhan waxa sabab waa aamusitaanka ay dawladdu ka aamusan tahay waxaasoo dhan waxa sabab waa sida muuqato maamulka jira xukuumadda ka mas'uula maxaa yeelay ilaa hadda intaasoo maalmood inay qaadato oo aanan dadkii la wacigelin oo la jihaynin oo aanan waxba loo sheegin dadweynahan ma qabato siyaasaduna sax kuma aha laakiin waxaad moodaa marar badan bay dawladani ku guuleysatay oo ku caana maashay aamusitaanka madaxweynaha inuusan ka hadlin ra'iisul wasaaraha wuxuu jiraa astan ka warqabno doogtiin gobolada dhexe magaalada Dhuusamareeb muddo bil ka badan fadhiya intaas oo meesha fadhiyay marna ma maqal asoo ama ka tacsiina ama ka hadlaya arrintan malaha culays ka weyn badan oo kale ayaa meesha ku haysto Rabbi ha u soo fududeeyo wixii fiican Ilaahay ha waafajiyo waxaan qabnaa marka arrinkaas sidoo u dhacay sax ma ahayn ilaa haddana aamusitaanka ay dawladda ka aamusan tahay khalad kalenta ah taas waxay daliil u tahay marka dawladdeenu inay markii horena ku fashilantay amniga iyo nidaamka inay sugto ka daba tagina xataa inay ka daba tagi laadahay oo ay ku fashilantay hortaas marxaad u tahay taas waa qodobkii hore qodobka labaad oo muhiimadiisa leh oo mustaqbalka iyo meeshii loo socday ah war dhibkan maalin waliba saan u dhacayo sidii aan uga baxsan lahayn waa inaan ka tashano fadhigan fadhigii ka horeeyo annaga xildhibaanada oo sodomeeya waxaan ka hadalnay fadhigaana inuu soo qaban qaabsamo aan diyaarino jidkii la mari lahaa laakiin waxaan rabnaa inaan jawaab yar ka bixiyo nabadoonnadii badankoodii hadal ay dhaheenay oo ay farta ku godaayeen xildhibaanada wixii khalada nin xil qaaday eed qaad baa leeyahay wixii aad aan qaadanaynaay laakiin waxaan rabaa inaan idin dhahno annagu sidiinaba waxa shacabkaasi rabaanan rabnaa shacabka waxay keenaanaan qaadnaa laakiin shacabkii haddoonan diyaar u ahayn inuu xaqiisii iyo xuquuqdiisii ka hadlo annaga in badan ma tusaaleyn karno laakiin waxaan rabnaa hal arrin idin sheegno idinna ballan qaadno waxaan ku tashanay diyaarna aanu ahay waxaad rabtaan inaan rabno dadkaan matalaynay baa tihiin dadkii aan mataqaanaa u dhaaranay danahooda inaan ka shaqaynaa tihiin diyaaraanna u nahnay waxaan rajaynaa qabanqabayaashii shirkan oo xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo nabadoonno iyo ugaasi isugu jiro iyo kasoo qaybgalayaashu maanta inaan laysaga kala tegin meeshan ee ay naga soo baxdo tala ah maxaa isteebka labaad oon qaadi karnaa inaan guddi la baxno inaan nidaam samaysano inaan shaqadan ku soconno ha nagu dheeraato bil ha nagu qaadato laba ha nagu qaadato saddex ha nagu qaadato dhaqaalaha mushkilad male soo u sheegay nabadoon muumin gariig waa runtiis dhala biyaha ku fuliba ha soo qaato kharashka aan jeebkeenna ka bixinno dawladdu aan uga ergeyno hadday diido dawladdu aan isu dabarno dhaqaale mushkilad male inaan saan u shirno 2,000 3,000 5,000 oo ruux inaan meel ku marti qaadno wax dhib ay leedahay ma laha dadku markay dan leeyihiin ma daalaan marka waxaan codsanaa soona jeedinaa aan idiin ballan qaadayaa xildhibaanada annagoo isku duuban insha Allah inaan idinla shaqaynayno jidkaad u socotaana aan idinla soconno maantana ay naga soo baxdo tala ah inaan guddina la baxno nidaamna samaysano oo aan jidkaasi naga xirmin adoo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام